ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa la wareegay deegaanka Jaw oo hoos yimaada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Ciidamada la wareegay deegaanka Jaw oo fariisimo u ahaa kooxda Khawaarijta Al-Shabaab ayaa ah kuwa dhawaan ka ambabaxay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud, waxaana ciidamadan hogaaminayay saraakiil ciidamada dowladda ka tirsan iyo kuwa dadka deegaanka ah. Maamulka degmada Guraceel, taliska booliska ee degmada, saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in gulufkan uu sii socon doono ilaa iyo waliba deegaanada Galmudug laga sifeynayo kooxda Khawaarijta Al-Shabaab. Kan saaka soo gaaray kuwa deegaanka oo aad u diyaarsan nimanka Khawaarijta ee meeshan 2 sano joogay way iskaga baxeen, way iskaga carareen, ama u jeedin baliga iyo xareedda iyo quruxda iyo dadka deegaanka oo sideed u xasiloon lagama qaxin sababtoo ah dad yar oo ku dhex jiray hayeen waana ka dhex baxeen. dad barwaaqadan iyo doogan in shabaab joogan xaq uma aysan lahayn, dadka xaq u lahayaa saaka soo gaaray aad u mahadsantiin. dadka ay ku cabsiinayaan nimankan waa laaba doonaan insha Allah ma laaba doono ilaa Ceelbuur sida gudoomiyuhu u sheegay waa gaari doonaa iyo waxyeynta ka sii haray intii dalka Soomaaliya joogan. guuleysta aad u guuleysta ciidanka gaar ahaan taliyaha ururka 72 ee qaybta 12aad waa soo dhaweynayna guutada 15aad. ciidamada dhammaan aad ay u mahadsan yihiin deegaankan 2 sano joogay nimankan wax badan ma aysan joogin sababtoo ah haday wax badan joogi lahaayeen waa ku dagaalami lahaayeen ma aysan lahayn deegaankan Soomaaliya iyadoon lahayn meeshan 2 sano joogeen saakana ciidamada iska caabin kale way walax yar miinooyin iyo waxyaabo ay duudugeena waa bixinay insha Allah ayakana waa ka dabagaleynaa habqankooda la sheegay hadda meeshan xirfadood iyo jaw sii socda burujeed u sii socda iyadana waa ka dabadigi doonaa hadda guuleysta Soomaaliya ha guuleysato ha israacdo dadka deegaanka ay ugu cagajugleeyayaan nimankan waa laabanaysa oo difaaca ka maqan soo galeen dadka uga maqan cabsidooda ha soo galeen waa u jeedin garab istaaga ciidamada laga rabaa dadka deegaanka waa mahadsantiin ma jirto dad shabaab la diriraya iyo shabaabka wax u dhaxeeya ma jiri doonaan Soomaaliya dhan maanta la dirirsan hal la istaago yaashii saakay markaan soo galnay waa ay u holi waayeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo xaqiiqatan aad ula tacaamulaya waayahan dambe waxaan rabnaa inaan uga mahad celino Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nagu guuleeyay halgankii marka labaad waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawlad goboleedka Galmudug oo uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye oo howlgalka qayb ka ahay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ka aga dhow waxaan rabnaa inaan u sheegno in saakay ciidamadii walaalahooda ay gacanta ku hayaan si buuxdana gacanta ugu hayaan cadow waa la sii bacsan doonaa ilaa godka ay galaan waa la gali doonaa marnaba iyo qalbiga u sheegin in ay mar labaad dib u soo laabtaan deegaanka imaadaan waxa meeshan jooga wiilal u dhaartay qarankooda Soomaaliyeed dadkooda dalkooda intaba inay ka xoreeyaan cadowga diyaar u ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intaan in la egna waa ay maaragtay nagarab taagan yihiin horena waa u sii socod doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ciidamada dawladda iyo kuwa macawisada isgarabsanaya 48 saac oo nagu soo aaday inaan ka qudbay doono degmada Ceelbuur insha Allah Soomaaliya